axkaam waxaa jirta kala tagsan oo aan meel kusoo urursanayn laakiin si guud laynaga doonayo in salaadeyna laga helo gaar ahaan qofka imaamka. bismillaahi araxmaan araxiim. daawadayaasha qiimaha badanna waa mar kale iyo barnaamijkeenii mahuraanka muslimka. waxaynu kusoo guda jirnay imaamkii iyo axkaamtii uu lahaa. axkaam waxaa jirta kala tagsan oo aan meel kusoo urursanayn laakiin si guud laynaga doonayo in salaadeyna laga helo gaar ahaan qofka imaamka iyo axkaamta la xidhiidha. axkaamtaasi waxaa kamid a kow, qofka imaamka ah ee dadka tujinaya cidda ku beegan ee xagga dambe ka marasa ee safka uu tukanayo ku beegan waa inay noqoto ululfadli walcaqli walxilmi walanaa, dadkii caqliga, garaadka, dulqaadka iyo fadliga u saaxiibka ah. arrintaani nebi maxamed ba sala allahu alay wasalam inagu dhiirigeliy waxau yihi layalina minkum ulul axlaami wannuha uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum. ha igu soo xigaan aniga kuwa idinkaydi ka midka ah ee u saaxiibka ah dulqaadka iyo garaadka iyo garashada, kadibna ay kusii xigaan sida loo kala aqoon badan yahay. sababta maxaa sidaa loo samaynaya, xikmada ku jirta maxay tahay? haddii imaamkii uu qaldamo, qur-aankiiba uu qaldo, yaa saxaya ciddan ka dambaysa oo ah cidda haddii uu qur-aankii qaldana sixasa. haddii salaadii imaamkii ay ka burto oo imaamkii salaadii ka baxo ama xaalad ay kusoo dirido ama ay tiisii noqoto, cidda dhammaystirasaana waa ciddan ku xigta. marka ubadkii yararaana lama doonayo, dadkii aan axkaamta salaada saxayna lama doonayo. qodobka labaad ee muhiimka ah xaaladan lagu jira waxay tahay alxirsu cala asafi alawal. waa in aad iyo aad lagu dadaalo safka koobaad. waxaad arkaysaa dad fara badan oo walilaahi alxamd soo dadaalay oo qabla iqaamada ka hor yimid, laakiin safkii hore uu bannaan yahay oo masaajidka qeybihiisii dambe o dhan ay buuxaan. marka masaajidka soo gasho haddii aan khudbad aani socon, waxaa kuu fiican inaad safka hore ka dhawaato oo aad ku dadaasho. maxaa yeele nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaasi way nagu dhiirigeliyey. waxaana ka mid ah laga doonaya qofka imaamka ahi inuu dadka ku dhiirigeliyo in sufuufta dadkan ku daba tukanaya siday usoo kala horeeyaan loo soo kala dhamaystiro. safkii hore oo koobaad oo maran ama bannaan ama dhiman, saf labaad lama bilaabayo. sidaa darteed ba rasuulullahi maxamed sala allahu alay wasalam wuxuu lahaa taqadamuu faatimuu bi walyutima bikum man bacdakum laa yazaalu qowmun yataakharuuna xataa yuakhirahum allah. bal fiirso, rasuulullahi maxamed sala allahu alay wasalam soo dhowaada oo dhammaystira oo isku soo dhowaada oo intiinaa dambe halkan hore yimaada. dadka qaar ka suuli maayaan inay dib dhacaan oo halka dambe iska fadhiyaan ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu dib urto. dee rasuulullahi maxamed sala allahu alay wasalam waa kii sagnay nagu dadaalay nagu dhiirigelinaal hadday dadka ogyihiin safka koobaad iyo eedaanka waxa ku jira way u dheerayn lahaayeen ilaa ay u qori tuurtaan hadday wax kala waayaan. qodobkeena muhiimka waxa weeyaan dee raggii baynu ka hadlayno isku dhiirigelinayne, dumarka iyana maxaa u khayr badan? safka ugu dambeeya u khayr badan. ragga maxaa u khayr badan? safka ugu horeeya. dumarka maxaa u shar badan? safka ugu horeeya. ragga maxaa u shar badan? safka ugu dambeeya. bawfi rasuulullahi maxamed sala allahu alay wasalam waxau leeyay khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha. sufuufta ragga waxa ugu khayr badan ka ugu horeeya, waxana ugu shar badan ka ugu dambeeya. wa khayru sufuufi nisaa'i aakhiruha. sufuufta dumarku ay galaan salaadana waxa ugu khayr badan safka ugu dambeeya. wa sharuha awaluha. waxana ugu shar badan ka ugu horeeya. halkaa xikmad weyn baa ku jirta. isagoo waqtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam sitaarad iyo wax kala teeda aana jirin ayaa min baabi sadi daraayic wuxuu rasuulku inoo samaynaya in isku milankii iyo ikhtilaadkii ragga iyo dumarka isdhex gelayeen laga taxadaro. raggiina halkii hore la jeclaysiinaya, dumarkiina halkii dambe. deeta vacuum ama in fakaak ah oo bannaan ayaa soo baxasa si aan rag iyo dumarkii isdhex gelin. arrintaana qofka imaamka waa laga doonaya, gaar ahaan waqtiyada aynu tukanayno salaadaha musallayaasha caamka aynu soo baxno, salaada ciidda iyo salaatul istisqaa iyo salaadaha la midka. qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee imaamka laga doonayo waxa weeyaan waa tasiyatu sufuuf, inuu ka shaqeeyo in safafkii la simo. marka la aqiimo lama doonayo imaamka isagoo sii jeedo inuu yidhahdo istow, laakiin waa inuu soo jeesto sidii nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ee saxaabatu rasuul ridwaanullahi calayhim ay ka sheekeynayaan. anas bin malik uu leeyahay salaadii baa la aqiimay, markaasa rasuulullahi maxamed sala allahu alay wasalam na soo qaabilay wejigiisii. markaasaa waxa uu nagu yidhi aqiimuu sufuufakum, war safafkiina toosiya oo wataraasuu isku soo dhawaado cidhbaha isku dhajiya iyo garbaha. fa innii araakum min waraa dahri, anigu waxaan idinka arkaa dhabarkayga gadaashiisa. anas wuxuu leeyahay midkaayo wuxuu ahaa garabkiisa ku dhajiya, lugtiisa iyo gomadiisana ku dhajiya, deesta si aanu meeshaba uga saarno. marka waxaa fiican oo qurux badan oo qofka imaamka laga doonaya inuu dadka ku dhiirigeliyo safka oo jeclaysiiyo inaan meel bannaan shaydaankii looga tegin, in safafka sida usoo kala horeeyaan loo dhammaystiro, inaan la iska rahsan, in safkii la toosiyo, inaan midna soo horeyn midna aanu dambayn, laakiin min koorne ilaa koorne in safkii la toosiyo. qodobka afraad aynu kusoo gabagabeynana waxay tahay salaatu lmunfaridi khalfa asaf.
وقضيات مهمة مر شعلنا يسبب بالعرين ونقش شكينه قفكي كليج أها صفكي بكبوح سمي بكليجي مصفك بلابنية مايا صلاة عسوما أنصح سقفك كليجي الصفك بلابنية حي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بوحوري لا صلاة لمنفرد قبل الصف صلاة المسجنان قفك كليجي تكنية صفك مسلمين تو بوحة مركا لباري مضمون إنه ما بنانا صفك يردمن إنه قفك إسكابل ذو كليدي استاك إياه صلاة دي اللي جوتشرو وصفك بوحه إنه قفك كليدي استاك وإنه عترات سيد صفك لقشة ولا بوحيسة إلهي سبحانه وتعالى وحين كبر ينا خيرك وناجيني ونوفتشيو إلهي سبحانه وتعالى هاي نوفض يديو وهاي نفهم سيو صلاة ديسة هناي نقدر كويت كذا سيد حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم وتكني صلاة أي نسوت كنني إلهي سبحانه وتعالى هاي نقابله وحي أي نكوجفني أما إنه قلدنا إلهي سبحانه وتعالى هاي نور دافو وهي نقع فيه وإلى هنا والله سبحانه وتعالى